بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي هو عمر يوسف علي سيادو قرتينبا وحانا مولانا نهي فليدنا فؤاد يوسف علي وحنسو سلام يا حقن لما نمدر جيبوتي سلام يقو دوما إليه وحا nin hawli u taallo fadhi kuma habboonaan la yidhi maanta kii soo hortaagay waa arrinta walaalkay ninkaa yar ee iga yar ee shahiidkaa ee videoga soo bixiyey shalay toole isaga oo saliil duus ku dhex jira aniga oo walaalkii ah waxaan leeyahay baaqa aad bixisay waan ka soo jawaabay wax alla waxaad tiri min maalintii aad baxday ilaa iyo imikana waan kugu raacsannahay dhammaanteeda waan kugu raacsannahay waanan kula dadaalaynaa ninkaa walaalkaya ee shahiidkaa maalintuu aabbahay geeriyooday ilaa u naxariistee 5 jir buu ahaa agoon hooyo soo korisay bay ahayd yuu ahaa wuxuu yidhi kartidayda ayaan ku soo bixi nolol ku samaysan reer ku samaysan ku shaqo tegi oon wax u baran intiiba uu falay laakiinse wax alla wuxuu reeb lahaayoo ku dhan sidaabaa loo burburiyey oo gudaafadaa lagu riday waxaa laga dhigay citoyen 3e class ayaa laga dhigay shaqaduu jeclaa oo militeernimada uu jeclaa oo sagaalka ka ahaa waa loo diiday diyaaradihuu wadayey uu jeclaa waa loo diiday doonayuu ciyaalkiisa siin lahaa oo ku korsan lahaa waa loo diiday maanta walaalkay wuxuu ka kacay waa taa anigoo cumar yuusuf calayna waxaan ku leeyahay fuadow waan kugu raacsan yahay waxaan doonaya inaan ii sheego fariin ziyaadaha uu iga yidhi fuad ii gaarsiin ummadda waana nii soo wadaa taanan waa nin dhegaysiin kale hadal inaan igu dheeraynay walaalkay fuaad baan la hadlayaa fuaadow waan soo socdaa walaalkayo waxaan ku leeyahay saliilka garabkaagaa isii xaadh hayloobi haddaan nolol kugu soo gaadho saliilka isii xaadh xaggaabaan ku jaar kula noqon doonaayo hadduu ilaahay ku qaatay geysigaabaa tahe ilaahay jannada farduusa kaa waraabiye haddii aan naf kugu soo gaari waayana waxa aan kugu ballan qaadayaa qabuurtaa lagugu aasay qabuurta ku xigta inaanay lay qodi oo laygu ridi taasi ayaan walaalkay kugu ballan qaadayaa hooyaday waxaan leeyahay ninkaasi waxaa yidhi waxaan u jeestay shahaadadaan u jeestay xaggii loo badnaa baan tagayaa wuxuu yidhi aniga i oyna in mushxaraduu yidhi kolkaa faamigayga walaalahay carruurtiisa waxaan leeyahay ninkaasi ilaahay buu hor joogaa ilaahay baa soo furi annakana uuna badbaadin doonaa ninkaasi ha u walwalina ummadda reer jabuuti waxaan leeyahay fu'aad waa inankiinni waa walaalkiin waa saaxiibkiin waa cid kastoo reer jabuutiya maanta ayuu yahay fu'aad diigiisa ninkaas kale noloshiisa isaga ninkaas kale
afkaa wuxuu ku dhuftaa hada jeer reer Jabuuti tolkii baa tihiin inninka weeyaan waxaa kuwaad garab joogsan karaa gargaari karaa taageeri karana anigoo Cumar Yuusuf Fadhi waxaan ku ballan qaadayaa in ay kolkii diyaaradaha furmaan in aan walaalkay garab joogsan doono reer Jabuutina waxaan leeyahay nin jiifkaaga arkaya looma sara kacee annaga reer Yuusuf oo ku dhan hooyo way hadashay Samiira way hadashay Amran way hadashay walaalkay wuu hadlay xaggaa baan taaganahay kolkaa wala hawshuna ininka inii taalla sidaad yeelaysin reer Jabuuti waxaan rabay iminkana inaan dhegeysiyo fariinta uu soo bixiyey walaalkayga yar dhegeysi wacan marka walaalahayo dhibtu waa maxay donc quel est le problème dhibtu waa maxay weji iyaga waxa dhibaya waa maxay c'est le courage leur seule faiblesse c'est votre courage haddaad inagu courage leedihiin et ils sont faibles ils sont rien du tout des milliards baa ku baxay aniga sida la ii soo qaban lahaa parce qu'ils ont vu le courage que j'ai fait c'est pas quelqu'un c'était pas normal donc war haddii maanta si plusieurs personnes 10 personnes si se sacrificent et sortent comme moi c'est fini c'est toute la population qui va sortir et ce monde-là va changer waxba isbedeli mais sachez que لكن واحد قراتين إن ما أركتني le potentiel واحد وين إذا ستين تقرن لذين إلا ما يأمك c'est de faire le courage de sortir il se peut que tu es un chômeur ناتاي il se peut que tu إن هذا المنطقة شغلة ده حتى mais sors 2 jours 3 jours et tu vas voir c'est fini c'est toute la population qui va sortir iska ilow qabiilka aad tahay aan mucaarad daractay maxaafid bakhtiga aad tahay oublie tout ça xaafadaha tahay sors pour tes intérêts u soo bax bon anigu je suis sûr que je vais pas sortir vivant ici inaan nolol ka baxin xagga waan garanaya mais c'est ça la vie noloshan maalin baa timid maalin waa ka tegi laakiin si xaqa kaga tegi لكن صباح حقها وهذا حقي أولاد هذا وهذا البريد طالع فيوتشر كوب نغنى فيتير كوب نغنى يجينا في بلسكوب وكان أنت عن ضلكم بربور لهين يدب فالحمى كدر لهين أنا واللي دير دونا وانقرنا يا vont faire soit Covid-19 كبالس اللي قسمين نورا أما الصنتي سمين جرين مركان سيدا الذي هذا الكيك نبط avant le 5e mandat طبعا لكن je suis fier pour الله يوم وفرح صراحة mais c'est ça la vie نرشن وطا والله السلام عليكم وأنا قصور نقضي waxaan doonaynaa niyad dhegeysiyo videoda kale si aan nii fahamsiiyo maanka walaalkay sidoo ahaa maalintuu videoga soo dhigayay iyo intuu xabsiga ku jiray dadka moodaya inuu cabsi iyo leyse calaacal ku jirtay walaalkay taabaad videoga baan i fahamsiin ta kale ani gaar ahaanteeda dadka moodaya hadalladan leeyahay inay Facebook dirir iyo fadhi ku dirir inay tahay taariikhdeeda dib ugu noqda kolka waxaan videogan ku xidhi fuaad ummadda reer Jabuuti
dhammaantiinba waan isoo salaamayaa waan jecelahay ummadda reer jabuuti waan jecelahay dhulkeenna ilaahay ana badbaadiyo dhagays been maratayo xaqi muuqay geedu mariyo hawada magol muuqii dadkuna waa midaba kale malamaleeyana waa ilaah mala rag baa lagu meel mara noo maleeyo meel la mari noo maleeyo meel